laascaano waxaa gaaray baraha bulshadana haysta Asad Cismaan Diyaano iyo ciidan aad u fara badan oo kamida kuwa beelaha deegaanada Puntland. Asad wuxuu laascaano u gaaray kadib markii ciidan qaab beeleed u hubeysan ay ka soo ruqaansadeen dhinaca Hargeysa, kuwaas oo xoog siinaya ciidamada Somaliland ee loogu awood roonaaday magaalada Laascaano. Asad oo ah shakhsiga ugu sareeya ciidanka BSF la yiraahdo oo ah kuwa qaab casri ah u tababaran, Mareykankuna si gooni ah ay ula shaqeystaan, sidoo kalena aan hoos tagin Puntland oo ka madax bannaan looguna talagalay inay la dagaalamaan Daacishta buuraha galgala ku dhuumaaleysata iyo shabaabkaba, ayaa ah ciidan sida la sheego ay aad u sareyso habka aqooneed ee dagaalka iyo waliba howlgallada. Sida warar xogaal ah aan ku helayno, dagaalka Laascaanood ayaa yeeshay qaab waji qabiila, halka markii hore uu ahaa dagaal ciidanka Somaliland iyo dadka deegaanka ACC, balse hadda waxaa soo baxaya inay isku hub urursanayaan qabaa'ilada Daarood iyo waliba beelaha Dir oo ay wehelinayaan sida la sheegay gurmad Jabuuti uga imaanaya Somaliland, kaasoo soo gaaraya iyo tiro aan badnayn oo ka socda gobolka la yiraahdo Awdal. Inkastoo reer Boorama ay sheegeen inay jiraan ciidamo ku jira oo shakhsiyaad ah kuwa dagaalamaya maahane aysan waxgaradkoodu isku raacsanayn dagaalka Laascaano ka socda si weyn ay uga soo horjeedaan. Haddaba waxaa la sheegayaa in ciidan ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida, gobolka Gado, Puntland, beelaha kala duwan oo dega ay iyaguna qabaa'ilhaan isku ururiyeen hub iyo wiilalna ay u direen Laascaano, kuwaas oo hareeraha magaalada Laascaano fadhiya. ACC iyaduna waxay difaac uga jirtaa gudaha magaalada, kuwaas oo gacanta ku wada haya. Dhinaca kale, Somaliland waxaa jira beelo sida la sheegay dagaalka diyaar u ahaa inay ka qayb qaataan, maadaama Somaliland iyo ACC iyo Puntland ay sheegeen inay gacan siinayso uu dagaalku u dhaxeeyay. Balse hadda sida la soo warinayo, markii dagaalku isu bedelay mid qabiil oo ah beelaha Daarood iyo Dir ay ka baaqsadeen, sida ilo xogaal ah aan ku helayno ayna noo xaqiijiyeen. Sababta ayaa lagu sheegay ay u baaqsadeen in dagaalku markii hore ahaa Somaliland iyo ACC oo Puntland gacan ka helaysa, balse hadda hadduu qabiil isu bedelay aanan ka qayb galayn, ayay sheegeen beelaha Garxajis. Waxaa la filayaa in isbedel uu imaan doono, sidaana aan la isku horfadhin doonin labada awoodood ee iska soo horjeedana maalmaha soo socda. Haddii ay hayb ahaan dagaalku ku bilowdo, Somaliland ay banayn doonto Laascaanood iyo guud ahaanba Sool. Dhinaca kale, wafdi ka socda dowladda Itoobiya, gaar ahaan hay'adaha sirdoonka iyo militariga oo haysta amarka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed, ayaa shalay gelinka hore aqalka madaxtooyada Hargeysa kula kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, iyagoo u gudbiyay aragtida dowladda Itoobiya ee dagaalka ka socda Laascaanood. Sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo ka tirsan madaxtooyada Somaliland, madaxweyne Biixi ayaa gudoomay fariinta Addis Ababa oo nuxurkeedu ahaa inuu dagaalka joojiyo, ciidamadiisana uu kala baxo gobolka Sool. Waxay ishayaanna ay yihiin dadka deegaanka oo aysan jirin marmarsiyo argagixiso ah. Bilowga toddobaadka nagu soo wajahan ayay isla xubnahan ka socda dowladda Itoobiya la kulmi doonaan isimada dhaqanka ee gobolada ACC iyo guddiga 33 xubnooda, iyagoo kala hadli doona arrimaha dagaalka iyo fariinay ka sidaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Mar kale haddaan Somaliland gudaheeda waxa ka socda gadaal ugu noqono, waxaa la soo sheegayaa oo waliba xoga lagu kalsoon yahay oo aan helna ay xaqiijinayaan in taliyihii ciidamada militariga Somaliland lagu sameeyay shaqo joojin galabnimadii Axadii toddobaadkan. Taliye Nuux Taani ayaa shaqada laga joojiyay kadib markii ciidamada Somaliland ay guulo ka keeni waayeen jab weyn oo ka soo gaaray dagaalka ka socda gobolka Sool, iyagoo oo soo baneeyay talisyadii Tukaraq iyo waliba Gambadhe. Ciidamada Somaliland ayaa sidoo kale maalintaas baneeyay dhammaan difaacyadii dhinaca magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaas oo muddo ku dhow bil uu ka socday dagaal u dhaxeeya Somaliland iyo dadka deegaanka ee ACC. Dagaalka Laascaanood ayaa waxaa weli hadda aan la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo badankood ah shacab, halka in ka badan 600 oo qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, madaxweyne Muuse Biixi ayaa si ku meel gaara taliska guud ee ciidamada Somaliland ugu dhiibay sareeyo guuto Faysal Cabdi Bootaan oo hadda hogaaminaya dagaalka. Faysal Bootaan ayaa Muuse Biixi ka dhaadhiciyay in fashilka dagaalka uu mas'uul ka yahay Nuux Taani, taas oo keentay in si ku meel gaara loogu dhiibo hoggaanka dagaalka. Sida aan xogta ku helnay, Somaliland ayaa rumaysan in si fudud ay u guuleysan karto ugana guuleysan karto dagaalkuna uu yahay mid ay ku qabsan karto magaalada Laascaanood
oo aysan dadka deegaanka aysan iska hor istaagi karin amaba aysan awood u dhigmata oo ay ku wajahaan ciidamada Somaliland aysan lahayn. hase yeeshee bil kadib waxaa weli magaalada ka socda dagaalka ayadoo laga saari laayahay ciidamada deegaanka oo ay guud ahaanba gacanta ku hayaan ciidanka u dhashay magaalada Laascaano. Somaliland ayaa sidoo kale dagaalka waxay ka dhaxashay sumcad xumo iyadoo marar badan lagu eedeeyay inay beegsanayso goobaha shacabka iyo sidoo kale meelaha muhiimka, waxaana ugu dambeysay Talaadadii oo lagu eedeeyay inay weerartay cisbitaalka magaalada Laascaanood kuna dishay dad shacab oo fara badan. sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta iyo sidoo kale kuwa korontada ayay beegsanaysaa Somaliland. arrintan ayaa horseeday in cambaareyn caalamiya oo ka timi beesha caalamka ay marar badan soo gaarto qoraallo lagu cambaareynayo dilalka shacabka ee ka socda magaalada Laascaanood ee xasuuqa ay ka wado Somaliland.